waxaa sii kordhaya wicitaanada dadka la xiriiraya hay'ad samafal oo ka shaqeysa arrimaha wacyigelinta tahriibinta wixii ka dambeeyay markii Maxamed Faarax uu shaaciyay sheekada ku saabsan in isagoo yar si sharci darro ah loogu geeyay dalka Ingiriiska. Hay'adda Unseen UK ayaa BBC-da si gaar ah ugu sheegtay in wicitaanada lagala soo xiriirayo hay'adda ay sare u kaceen boqolkiiba 20, sidoo kale boqolkiiba 15 waxaa kor u kacay xiriirinta guud ee lagala soo xiriirayo hay'adda, waxayna dadka qaar ay kala soo xiriirayaan dhinaca bogga internetka. Agaasimaha hay'addan samafalka Justin Carter ayaa sheegtay in dadka soo wacaya dhammaantood ay si gaar ah u sheegeen in hadalladii Maxamed Faarax ay ku dhiirigeliyeen tallaabadana. Xiddiga Olombikada ayaa horaantii bishan shaaca ka qaaday in UK ay geeyeen dad aan waalidiintiisa ahayn. Isagoo ka hadlaya dukumeentari ay diyaariyeen BBC-da iyo Red Bull ayuu sheegay in UK ay u duulisay haweeney uusan garanaynin ayna siisay magaca Maxamed Faarax oo uusan lahayn. Waxa uu intaasi ku daray in magaciisa dhabta uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. Mas'uuliyiinta hay'adda Unseen UK ayaa BBC-da u sheegeen in isbuucii ku xigay marka uu Maxamed Faarax uu shaaca ka qaaday xogta ku saabsan noloshiisa oo markii ugu horeysay hawada laga sii daayay 11kii bishan Julaay 231 ruux ayay soo waceen laanta ka shaqeysa adoonsiga casriga ah. Dadkaasi ayaa aad ugu badnaa marka loo barbardhigo tirada dadkii hay'adda la soo xiriiray isbuucii ka horreeyay kaasi oo ahaa 292 ruux. Wadarta 368 ruux ayaa isbuucaasi gudihiisa soo wacay hay'adda marka loo eego 319 qof oo soo wacay isbuucii ka horreeyay. Mrs. Carter ayaa BBC News u sheegtay in wicitaanada soo gaaray ay ka dhigan tahay kalsooni soo laabatay. Mrs. Carter ayaa sheegtay in dadka la soo xiriiray ay isugu jiraan dad haatan ku jira shaqaalenimo iyo qasab iyo kuwo sanado ka hor soo maray balse weli dareemaya murugo la xiriirta arrintaasi. Maxamed Faarax ayaa dukumeentari ku sheegay inuu ku dhashay Somaliland markii uu 8 sano jir ahaana loo kaxeeyay inuu qoyskiisa kula noolaado dalka Djibouti. Kadib waxaa UK u dhoofisay haweeney uusan weligiisa la kulmin aysan waxba isku ahayn, balse waxay u sheegtay in uu la noolaan doono qaraabadiisa ku sugan Yurub. Wax yar kadib markii Maxamed Faarax qisadiisa shaaciyay, isbahaysi ka kooban hay'adaha la dagaalanka tahriibinta qareena ayaa soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah oo ay ku bogaadinayaan tallaabada uu qaaday Maxamed Faarax.